hogaaminayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biix Cabdi. shirkaasi waxaa gudoominaya madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle. waxaa sidoo kale ka qayb galaya diblomaasiyiin caalami ah. sidii shirkan uu ku furmay ayaa waxaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay wariyaha VOA-da Rabadaan Muuse oo ku sugan madaxtooyada Djibouti. وفرمان وانا سبب الله عم بقاضي وضع هذا Somaliland يا Soomaaliya بريان بلوجا دين فدين مركا الوفود يودون وصل فدنا قول قارة لكوجرا العيد يودون ويكونين وحكمنا طبعا مدحونا جيبوتي أو وضع كذا مرشد اللي هاي الوفود الرئيس جيبوتي وحكمنا جوجا أبي أحمد برايم مينستر في إثيوبيا أو يسوون دوفتي سوتا وحكمنا جوجا لفظي طبعا جود هذا الشيء Somaliland يا Soomaaliya وحكمنا جوجا الجيران أمريكان كا العربة Soomaaliya وقابلسان دونالد ياماموتو يحقيه إيجاد ويسقون إن كخيب غازنا كمان ويكونين وسيرة هذين حوجا حصنا حاجة Somaliland واحد كتير إن سلمان محمود هذا نواه كتومية يقولها كورسي في Somaliland وزير كريمة بدأ ياسين حاجي محمد فرسون وزير horumarinta Somaliland saguna maadiyada Dr. Saad Ali Shire wasiirka ganacsiga Somaliland Maxamuud Xasan Saad Saacin wasiirka xanaanada xoolaha Saciid Sulub Maxamed iyo dabcan ergeyga gaarka arrimaha wada hadalada u qaabilsan madaxweynaha Somaliland Dr. Aadan Ismaaciil xagga Soomaaliya dabcan waxa joogay madaxweyne Farmaajo waxa joogay Maxamed Mursal Cabdiraxmaan oo isaguna gudoomiye golaha wakiilada federaalka ee Soomaaliya waxaa joogay ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wasiirada kale waxaa kaloo joogay Ethiopia Prime Minister Abiy Ahmed wasiirkii arrimaha dibadda Ethiopia wasiirkii maaliyadda Ahmed Shide waxaa kaloo joogay wasiirka hawlaha nabadeynta ee dowladda federaalka Ethiopia dhammaan xagga Djibouti طبعا madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ra'iisul wasaaraha Djibouti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamed Ali Yuusuf wasiirka gaashaandhigga Djibouti حسن محمد وحكلوا إن حق جبوتي شجوا وزير كعدالة وزير كحنانة حولها يبيرها دمان والقولي هو كتير ولا صدور فديا سلاش ويصير كنا صعدا إلا يهد ولو بحكسوا بحيم جرتو وأنا صعدا شركي وأنا اللي صدور فديا شركة مركب وفرمية مديرين وحوة هذا الله أما أجندها شركة أو قصة لقى شيء أو رياش لا شيء noqon doona dabcan qolihiisa uu hadlayay labada dhinac oo markaas la qaadan doono in dhammaan waxyaabaha ku wada hadleen waxa ka soo baxay hase yeeshee ilaa imika waa la soo fadhiyaa wada hadalkii ayaa socda bilowna uu yahay dabcan muxuu marka asaasida maaragtay muxuu wali way ku jiraan waan qolkii ku filayeen halkii baan wada hadalku uga socdaa marka Ramadaan wada hadalku ma la og yahay inta maalmood oo qaadanayo ma maanta oo kaliya ahba ma dhowr cisho soconaya إلا هذا ولي وحلا شيء مجلسه إلا هذا إن ما توفرمي أو تبرع عن بقى هذا وضع هذا الذي Somaliland يا Soomaaliya مدة فدي إلا حسي شيء لا هذا لما حكيتين أو واحد جندا لما صابر لكن ولا ما أردن إنت سو معلومات وسعنا يا مركو ما تفرموا إن مركز تبرع ديكو كان دون هذا الله يدا